madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa xariga ka jaray xarunta beerta dalxiiska ee Baalada ee laga hirgeliyay magaalada Boosaaso. Madaxweynaha Puntland ayaa bogaadiyay in ganacsatada Puntland dalkooda maalgashadaan, isagoo xusay in ay tani qayb ka qaadanayso in dalka ay ku soo laabtaan qurbajoog badan haddii loo diyaariyo goobo dalxiis oo nuucan oo kala. Waxaa munaasabada kala qayb galay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Puntland محمد باري شيرة حمنا كترسن قلاياشة دولة قبليتك بولان لا تليال قدقة تعلين تسرى بولان مامولك قبل كباري إيا كندق مدى بوساسو قناعستو ملكيلاها بيرت بالada عبد اللطيف يوسف برة إيا مامولك حرونت إيا مرتشرف كلا حسناتنا كسيو خيرنا الله كوافجيو runtii waa ganacsi mudan in la dhiirigeliyo deegaanada Puntland ay u baahnaayeen waliba magaaladan oo aan rajaynayno magaalada caasimadda ganacsiga oo meel dad badan kulmisa dad badan u soo hanqaltaagayaan inay yimaadaan oo maal gashtaan inay hesho waxyaabo ummadaha noo imaanaya ee xilliga ay shaqada ku jirin ay ka helaan nolosha ay u baahan yihiin dabcan ganacsatada qaybaha kala duwan ee hawlaha wada way ku mahadsan yihiin waan ognahay oo ganacsigeena inta badan wuxuu u badnaa trade wax la dhoofiyo wax la soo dejiyo magaaladan ma aha magaalo deked kaliya waa magaalo ganacsi haday tahayna waa inay dad badan ku noolaadaan dad badanna yimaadaan magaalooyinka boortiga kaliya waxa dhici karta inuu ganacsiga kaleeto uusan aad ugu baahan maxaa yeelay dadka ku nool waa dad ganacsiga u yimaadeen kuwa ka xamaasho taga laakiin tan way ka duwan tahay waa suuq muhiim oo dad badan ku soo hiranayaan waa xarun wax soo saar oo laga soo bilaabo macdantii iyo maydigii iyo kalluunkii iyo beerihii iyo xoolihiiba kulansatay marka waxaan u baahanahay sidii dadku ugu nagaan lahaa waxay u baahan yihiin ganacsiyo kala duwan in laga sameeyo oo kani karo kala tahay runtii aadaan uga mahad celinayaa meelaha kale oo la mid oo shaqooyin ka socdaan nabadaas saldhigga u noqotay inaan halkaas fadhino oo runtii habeennimo halka loo soo doonanayo inay furantaho lagu caweeyo hawl yar kuma imaan sida la sheegay juhdi badan baa galay dowladda Puntland iyo shacabkeeda shaqo badan bay qabteen wiilina socota inkastoo dowladdu difaaciina ay wakiil ka tahay laakiin haddana duruufaha hadda halka lagu jiro iyo dabeecadaha argagixisadu waxay u baahan tahay shacab iyo dowladba inay ka wada shaqeeyaan marka dadka reer Boosaaso iyo dhammaan gobollada tan golis buuraheedu ay maraan oo runtii waliba magaaladan oo target ahayd oo la rabo si Puntland loo curyaamiyo in isha dhaqaalaha laga rido waxaan u baahanahay in gacan joogto dawladana laga siiyo idinkuna aad ka qayb qaadataan marka maanta waa maalin xafladeed waa maalin farxadeed ma rabo wax badan inaan ku dheeraado insha Allah siyaabo gaar ah isku arki doonaa bulshada halka iyo ganacsatadeedaba waxyaabaha waqtigeeda ayaan u dayn doonaa maanta martibaynu nahay casuumadan iyo farxadan inaan la qaybsano unba ugu muhiimsanayd dad badan oo halka aan ku arko ganacsato waxaan rajaynayaa de maalinta niiliyeera kaliya iimaanay idinkoo kaligiina iimaada si lacagta aad maalgelinta qayb uga qaadataan oo xafladaha ugu qabsataan oo shirarka ugu qabsataan marka kulli hawshaasi waxay u taalaa gobolka iyo degmada sidii dadkan reer bariga jawaabkooda lacagta looga guri lahaa farsamay rabtaa in la isugu tagay u baahan tahay marka Cabdiladiif waa yaqaanaayo meel fiican buu u furay oo ku soo jiidan karo marka insha Allah waxaan rajaynayaa in dad badan oo ganacsato oo marti oo aad ka xishoon jirteen inay inii yimaadaan oo meelaha geysaan awoodeen hadda kadib de hoteelo wanaagsan iyo meelaha ku casuntaan baad helaysaan marka idanka naftirkiina culays baa inaga degay waa ogahay dadka ganacsada halka culays baa ka haystay dadka ajaanibta ay la shaqeeyaan mararka qaarkood haddii rabaan inay u yeeraan duruufta qabsan jirtay waxaan rabnaa Boosaaso maalintii dhooto barnaamijkii lagu soo bandhigay Mareero wajigeedii uu bedelay dad badan baa ku soo wajahan
waxaa la qiray inay tahay goob dalxiis goob ganacsi un baa lagu ogaa maadaama ay saas tahay waxaan rabnaa meelaha dalxiiska in la kordhiyo wasiirka iyo xildhibaanka hadda kala hadlaya ugu horeysa biyo kulula in wax laga bedelo oo meel u qalanta in dadku soo aadi karaan in laga dhigo mareere in la horumariyo mashaariicda degmada hadda uu sheegay oo biijajka ah in la horumariyo beeraha kan kuwa hadda samaysan iyo kuwa hore u samaysmay hoteelada waxyaabahaasi waxay dhinac soconaysaa sektarka dalxiiska wasiirkii dalxiiskana waa joogaa iyo ciyaaraha garoonkii waa furan yahay hadde meeshaan waa dhexdaas waa laga hijrooday dadkii deganaabaa ka tegay dad dambe inay u yimaadaan maxaa waa laga filayay marka hadda waxaan rajaynayaa inuu wejigaas bedelmay marka u diyaar garooba ganacsato iyo maamulba labadaba degmo iyo gobolba dowladduna way inagala shaqaynaysaa hadday tahay horumarinta amniga iyo hadday tahay mashaariicda xagga infrastructureka ama jidadka ahaadaan ama waxyaabaha kale oo la horumarinaya ahaadaan intaasna insha allah gacan baan ka geysan doonaa insha allah waxaan rajaynaynaa marka nabadda magaalada in laga wada shaqeeyo u baahan tahay dowladda keligeed kuma filna runtiina waxaa wax la qabtay intii wada shaqayntu socoto waa ka mahad celinayaa dadka puntland guud ahaan iyo gaar ahaan gobolladan dadka degan gacanta ay ka geysteen laakiin in la sii waday u baahan tahay arrimahaas in la sii waday u baahan tahay waxaan kaloo ka dardaarmayaa inaanan gorgortan laga gelin ammaanka wixii kaleeto waa meesheeda laakiin ammaanka iyo xasiloonada magaaladan inaan gorgortan laga gelin marka waxaan rajaynayaa maamulka gobolka iyo degmadu inay ku hoggaamiyaan midnimada dadka in laga shaqeeyo wadajirkiisa waxyaabaha caamkana in la wada ilaashado oo amnigu ugu horeeyo oo jidadku ay ku xigaan oo nadaafadda magaaladu ay ka mid tahay horumarka dadku samaysanayaan in la ilaaliyo u baahan tahay ganacsigooda iyo maraashada marka insha allah waddada ay ku socoto waddo fiican baan arkaa geedigaas oo la sii wado looga sii dhowaadaan rajaynayaa waxaan rajaynaynaa magaalada boosaaso iyo dhammaan magaalooyinka puntland oo nabad ah oo xasiloon oo mid walba waxay ku fiican tahay looga faa'iidaystay ayaan rajaynaynaa inay dhacdo ilaahay idankiis dowlad ahaanna siyaasadeennu aad bay u caddahay oo wixii aad noo doorateen oo aad shuruucda iyo dastuurka ku dhigateen un baan ku shaqaynaynaa inaan ka shaqayno badqabka dadkeenna iyo xasiloonidiisa iyo horumarkiisa wixii karaankeenna oon kari karno marka idinkana inaad gacan nagu siisaan joogto ah baan inaga codsanaynaa